Samadin Media Channel. way xasan xundubay su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye sidee lagu ogaaday qaybaha kitaabka ka mid ee Birmingham laga helay da'da ay jireen horta waxa weeye waa mahadsantahay Cabdisalaam da'da ay jireen waxa lagu ogaaday waxyaabaha taariikhda lagu baaro waxyaabihii kumanaan sano ama boqolaal sano ka hor raacay dadka taariikhyahanka ah ay wax ku baaraan qalabkaas ayaa lagu baaray oo sheegaya wax walba xilliga ay ahaayeen marka qaybtani waxay ahayd intii rasuulku noolaa waxyaabihii la qoray qof waliba uu ku haysta gurigiisa ama se maktabadiisa uu ku haystay markii dambe kitaabka la jamci doono oo sayidina Usmaan markuu madax noqday waxyaabaha uu isku dari doono kitaabka hadda la yaqaano jaamica ka soo saaray ayay kuwaanu qayb ahayn marka qaybihii go'go ahaa ee qof waliba gurigiisa ku haystay maqaarka ama lafaha ku qoraa lafaha geela sida garabka geel oo kale oo loox badan leh ayay ku qoraan jireen cid walba uu haystay laakiin xilligii sayidina Usmaan ayaa la isu keenay marka waa qayb kamid ah taariikhda marka qaybaha kitaabka kamid ah ee Birmingham laga helay ay jireen inta lagu qiyaasayaa xasan 630 ilaa 35 taariikhdu markay ahayd ayay dhaceen markii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu yimiday Madiina 620 markii 620 ilaa 635 ayaa la qoray 15 ka sano ayaa la qoray xillidaas waatay sidee buu markaa ku yimi meesha kutubta lagu kaydiyo ee jaamacadda Birmingham waxaa jirtay wadanka Ingiriiska oo aad u daneeya waxyaabaha taariikhda ah iyo ummadaha dhaqankooda iyo diimahooda aad u daneeya ayaa 1920 waxaa la diray nin aqoon-yahan ah oo soo ururiyay Middle Eastiga oo meelaha ugu taariikhda ugu horeysa iyo diimaha dhan ay ka yimaadeen diimaha samaawiga loo yaqaano ee muslimka iyo kristaanka iyo yahuuda ayuu inuu soo ururiyo marka wuxuu keenay ilaa 3000 ayuu keenay marka qayb uu ka ahaa waatay muddo 100 sanadood la sheegay xasan in lagu la'aa meesha library-ga ama bugaagta lagu kaydiyo jaamacadda Birmingham sidee taas ku dhacdo miyaan la garanaynin in quraanki yahay jaamacaha baaritaanka dadkii ku haboonaa ee aqoonteeda lahay ee ogaan lahaa waxani waxay yihiin qiimeyn lahaa ilaa waa wax yaro maqaar ku qorani ayaan helin marka hadda waxaa rag expert ah oo aqoon u leh inay yihiin arintani arin culus inay tahay tan haddana hortaala oo anigu haddeer markaan gartay aan ka gartay waxa ay tahay suuratu daaha bilowgeeda iyo suuratu maryam dhamaadkeeda waaye haddii ay akhrin karaan dadku oo ay arki karaan waxaa dhammaanaysa suuratu maryam lahum rikzan ayaa noo muuqata wakam ahlaknaa way noo muuqataa qablahum min qarnin hal tuxisu minhum min axadin aw tasmacu lahum rikzanti way noo muuqataa oo ay ku dhammaatay sharax yaraa la geliyo lagu kala jaray waxaa la bilaaba daaha bismi illaahi araxmaani araxiim daaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa ila tadkiratan liman yakhsha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa lahu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi wama baynahuma wama taxta الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى سي مقدة ولي راتكيسي سي مقدة واطي حسن وارين ماركتي معجزة مركع adeegto laakiin sida uu qoran yahay muxuu kaga duwan yahay baad oran lahayd kitaabkan jaamaca maanta aan naqaano kitaabka jaamaca maanta aan naqaano sida uu u qoran yahay ayuu u qoran yahay waayo kitaabka maanta aan naqaano Usmaan baa qoray Usmaan bin Affan waxaana loo yaqaanaa qoraalka waxaa loo yaqaanaa ar-rasm al-Uthmani qoraalka Usmaan lagama bedeli karo sidan quraanka loo bedeli karin ayaan qoraalkan loo bedeli karin marka horaad ka garanaysaa inuu asagii yahay qoraalkii rasuulku kaleey salaatu wasalaam asagoo jooga la qoro kan ku qoran iyo kan kitaabka waa isku mid kaliya waxa ka duwan shaqalka ayaa ka duwan shaqalkana waxaa la qoray xilligii sayidina Muawiya uu joogay oo adiga waxa waaye nus qarni markii hijriyu ahayd agaarkeeda la qoray ka un baa ka duwan
shaqa la-aantani faa'iidada ay leedahay weliba faa'iidada shaqa la-aantu leedahay waxaa ka mid ah luqadii qurayshta iyo ahlu xijaasku hadli jireen oo kala duwaneed ayaa haddii shaqalka laga daayo waxay noqonaysaa ninka mufasirka ah oo qur-aanka fasiraya wuxuu helayaa soo meelo badan oo uu fasirka u leexin karo haddana tusaale soo qaato suurat kaliya maliki yowm اdiin suurat اfaatixa maliki yowm اdiin ama maliki yowm اdiin maliki ama maliki haddii shaqalka laga daayo labadaba waa loo akrin karaa maliki maliki laakiin haddii la shaqlo taad ku shaqasho u bay noqonaya waa tay xasan ugu dambayntii arrintani sumcad weyn iyo magac weyn ayaa sida warbixinuhu ay sheegeen ay u noqonaysaa jaamacadda magaalada birmingham iyo magaaladaaba guud ahaan maxaa kitaabkan imika lagu samaynaya baa layidhi wallaahi taa kaliya maahe aniga haddeer markaan arkay cabdisalaam waxaan dareemay sidii inaan joogo xilligaa inaan joogo kalan dareemay waayo waa markii iigu horeysay oo aan jaanis u helo wax sidan oo kale ah marka muslimiintana way u fiican tahay adduunka oo dhan gaar ahaan muslimiinta ku nool u k waxaa loo furi doonaa baa layidhi dadka inay arkaan octoobar laga bilaabo inay arkaan marka waxaa ii muuqata in malaayiin muslimiina iyo malaayiin kale oo muslimiin ahay laakiin jecel inay wax ogaadaan inay imaan doonaan dowladda ingiriiska dhaqaalo badan ka soo geli doono muslimiintana wax badan ay u tari doonto lagana yaabo weliba dad badan inay u noqoto inay dhici karto inay ku muslimaan xasan xundubey aad iyo aad baad umahadsantahay